السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا لما دقيستي الكسر لو هذا برنامج كأني سراعة الصومالية وعلى بكبرت لنا كود داوتان شان شدنا العالمي هي الصومالي channel وحن شعل هاي مرة بعديو كذا بايو كل حيس له وحن شعل هاي بالمانتنا هنا نريدين سوقاتنا waxaynu ku soo jirnay heesaha iyo barnaamijkan runtii horta marka ugu horeysa waa barnaamij gastra ama dheeri oo lagu talagalay taageerayaasheeda oo ay ka yimaadeen su'aalo iyo email iyo telefoon aad u fara badan oo ay nagala soo xiriirayaan baraha internetka lagu kulmo iyagoo doonaya bal inaan dib u galno inaan dib ugu soo celcelino barnaamijyadii إسراع في الصومالية إسراع ضد الصومالية هي إسراع وأهم شيء إسراع ضد الصومالية إسراع لوك الصومالية برنامج كانوا مركا أما باريتان كان أما دمر كانوا أنا كل صوص مني بدأ الناس السعودي أيام نومي كين نوايا برنامج كانوا محن داود يا شيء وش يجينا ما تاجر يا شيء قدرتي قيمة مضن إن أنا أي سيدا يعني مركز لقى هذي أمر دقن كهالنقطة أمر دول كصومال هالنقطة إنه برنامج كان ضد كصومال دو وكيران يوايو هذه يشيروا إلى مكاننا وحيابات دي رنتي راع له وهدي أنا شغلنا له راع كذا أمر فرانس له تاسنا يتهمد عادي وين طلبار إن كي وحكي لي كيبا وحكي لي هالكي وحكي لي أي واحد قادر يسمي دوين يو قعمد ضد كذا حاجة حلوة مركز وأنا سكوت دي إن أنتي كران كيجا إن أن بالكينو research كان أما دمر كان إمك أنا سويت شيء ديننا ودمر كوكو برنامج إسراع صومالي وحاول أعرف عن سلنا والنسين إنه وحوي هو عبد جودي أقون تيسي دمر كي أسوس سمية يبنا أسود دياري يعني كسوس سمية بالهذا كل ما ماشي وحلقه اللي كرايو إنه وحيابها قار كل هروب يسمى لحد أنا بل إستدا ودو إلوسو قبل مين كرايو أما مجلسة دبر لو سمين كرايو حجيبي كتمي صومالي ومحي صومالي يعني دد كان ماشون كنول ما أنت لوركم بقولي قبيلة أبا ولا غير ما ميل بيك وذي مادين ما ميلك رجال كي مادين سيدي وصل كل هروين يا سوق يا كتجي يا كسر نقضي ووحيا بها وفرها بدل هدي يعني لوفير سدل لهني كراي دمر كدو بهذا كصحدا إن كستوي حدي تاريخي هنا داني ميلكم قرني أي مرم بدن قلان حدنا وأون عنلقة يا أخوان تيلا Soomaalidu hadii jeer waxa la yiraahdaa xaqiiqatan waa maxay Soomaalidu dadka qaar waxa ay haystaan magacan Soomaali inuu ahaan in laga tafiirmay dadka qaar way og yihiin in dadkan isu yimaadeen qabiiladan iminku ma aabaa wada dhalay ma meel gaaray ka wada yimaadeen waxa aad arki karaysaa inay yar yihiin qabiilada Soomaaliyeed ee maanta nool ama dadka Soomaaliyeed ku jira ee aabba wada dhalay ama aabba ka yimi inay yar yihiin fara ku tirsiin mid walbana waa barxaya mid walba waayo dadkani waxa ay haayeen dan wadaaga ama baho waxbay iska dan wadaagsadeen ama waxbay iska bahaysteen ama waxay danbay wadaageen dan wadaaga marka la leeyahay waa laga yaabaa inay noqdaan dad aabba wada dhalay waana laga yaabaa inay dad meel wada degan oo dan wadaagay bah wadaag hadii la yiraahdana waxa la iska bahaysanayaa mid kamida bahda behebel hadad maqasho walaalkooda tiro badan oo iska bahaysteen walaalkood oo tiro badan ay iska bahaysteen oo isku bah bay noqdeen bahdu markii hore ay bilaabanteena waxa ahayd wixii isku beela magacani waa Soomaaliya oo kulba si dan wadaago baho ayuu baahay dadka qaar waxay isticmaalaan magaca iskaashata la yiraahdo iskaashata maaha oo iskaashatadu ma waa wax isu tagtagayo يعني waa magac dambe iskaashatadu laakiin erey bixinadii hore waxay ahayd in la isticmaali jiray dan wadaaga iyo bah marka horta aynu eegno
dhimirka ugu dhow waxaa jira waxyaabo fara badan ama dee raggan iyaguna taariikhyahanka ay yidhaahdaan oo ay ku odhanayaan ninkan soomaalidu waxay ka timi nin loo boqor reer ciraaq buu ahaa markaa magaciisa waxaa la odhan jiray marduug waa af soomaali wuu dhintay baa la yidhahaa ciraaq buu ku dhintay musoo haddana soo baxay ma isagoo nool baa laasay khuraafaad baa walow aanan anigu taa aaminsaneyn cabdigood ahaan haddana ninkaa marduug baa la odhan jiray waa taarikhaha dadkana ay hayaan markaa marduug baa ka yimi halkaasoo markii dee la xabaalay buu soo baxay marduug dee waa nin mar la duugay ama mar dhintay marduug inkastoo duug markay noqoto duugitaan ay laba waxyaabood noqonayso oo marka imika la joogo somaliland ama la joogo jabuuti ama la joogo hawd in duugitaanka loo yaqaano masaajada laakiin marka la joogo soomaaliya in duugitaanku uu noqonayo dhimashada ereygaas markaad eegto markaa macnihiisa intan la yidhaahda candho dhexe ama ismaamulka kililka shanaad hawd galbeedka iyo waqooyiga waxaa loo yaqaana dhimashada oo imika ereyga dumaal waa nin dhintay xoolihiisii maalaya nin walaalkiiba for example nin baa gabadh qabay uu dhintay walaalkiiba guursanaya markaa xoolihii ninkii kaleu gabadhan ku maalaya markaa dumaal halkaasay ka timi markaa maadaamay u noqotay taasi dee duugna malaa ereygaasaa saxa aasid waa qof la aasayo oo laakiin dee wax kasta oo ciid hoos galoo la aasayo waa aas baa la yidhaahdaa laakiin ma magacii u gaarka ahaabaa duuga oo uu ka yimi waa saxsan yahay isna adigu markaa marduug waa nin mar dhintay oo soo baxay ninkaasaa halkan yimi oo dadkan dhalay baa la yidhaahdaa taariikhuhu waxay sheegayaan oo kale ama dadka qaar aaminsan yihiin in dhowr group oo soo kala horreeyay ay dhulkan yimaadaan oo ah dadka soomaalidu ay kasoo jeeda baa lagu odhanayaa halkan marka ay marayso taana anigu waan kasoo hor horjeedaa dadkani inay dad ugu yimaadeen meesha mooyaane meeshan cidla may ahayn waayo adduunku waxaa aaminsan yahay inuu geeskan afrika kafta fiirmay anigoo taa haysta markaa ma odhan karo waa la yimi waayo halkanaa laga tegaayo oo adduunkuba ka tegay dad baa ku hadhaya dabcan markaa dadkaa ku hadhay unbuu noqonaya un dadkay soomaalidan maanta aynu joogno ay ka tegin dad iyadoo inta meesha faaruqantay dad yimaadeen miyaa lagu soo noqday kow halkii laga tegay baa halkana markaa waa la yimi iyo waa la yimi ma aaminsanaanayo anigu ama ma qaadanaya taa waayo maadaamay tahay halkani halkii laga tegay laga tafiirmayba adduunkii dee dad baa ku hadhaya markaa kaa yimi waa sida imika tusaale haddaynu kasoo qaadano lagu odhanayo qaaradan america waxaa helay oo yurubiyaanku markay doonayaan dee inay magac isu yeelaan majilan baa la helay baa lagu odhanayaa nin baa helay dee bortugiisa ayaa lagu odhanayaa meesha oo imika marka ay daado waxaad tusaaleyn kasoo qaadana markay dadka yurubiyaanka ahay ay samaanayaan ayaa waxay yidhahdaan nin baa helay yurubiyaanka de dadkii berigii hore badmaaxyadii ama badmareenadii ayaa helay baa lagu odhanaya qaaradan america oo siduu u helay miyaan dad ku noolayn ma dhul lumay bay ahaayeen meel cidlo ah oo intuu keligii tegay waa la odhan karaa ninkaasaa soo helay dhulkaasoo markaa dadkanaa tegay laakiin dad buu dee ugu tegay reer indiis buu dee ugu tegay meesha ku noolaa
latin america waxa ummad ku noolaba dee way ku noolaayeen markaa ninkani mu helin yurubiyaankuunba adduunka bartay markaa waxay diidayaan inay magac yeeshaan oo berigaasuu helay qaaradda siduu u helay miyaan dad ku noolayn adduun baa tegay marka ogow sidaas oo kale dee ninkani ma helin qaaradan dadkan yimina meeshani maaha dadkay ka farcameen soomaalidu ay u yimaadeen dadkii ay ugu yimaadeen meeye markaa waa waxyaabaha marka aanan aaminsanayn anigu kolley sidaa haddaynu dhigno marka waxaa lagu odhanayaa 3,000 sanood iyo 2,000 sanood ka hor bay dadkana yimaadeen waxaana haddana lagu odhanayaa faraaciintu waxa ay ka tageen dhulkan ay ka tageen baa lagu odhanayaa africa east africa ay ka tageen baa lagu odhanaya especially dee dhulka puntland bay ka tageen baa lagu odhanaya iyo dhulkii ka hooseeyey oo 3,000 sanood baa waa la yimi odhanaysaa 3,000 sanood ka hor 6,000 sanood ka horna halkana laga tegay baad leedahay marka eeg haddana caqligu isdiidayaa taana oo anigu kolley taa waan kasoo horjeedaa marka waxbaa yimi iyo waxbaa ka tegay dad kuwa yimi dee kulley dadka u yimi haa waa la sheegayaa waa la degaan bay noqonayaan dee dadkii bay la degayaan meesha joogay laakiin iyaga ahaanaya dadkii meesha deganaa noqon mayso ilaa dad bay ugu yimaadeen markaynu imika eegno dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin in laga yimi masar iyo jasiiratul carab in dadkan ay ka yimaadeen dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin loodu inay afrika ka timi geeluna carabta ka yimi oo markaa dadkii dee looda watay dadkii geela watay ay yimaadeen oo dadka markaa halkan ku kutafirmay ee soomaali maanta la yidhahdo taana waan kasoo horjeedaa oo xooluhu dee way ku dhaqnaayeen meesha xoolo yimi oo ajaanib oo dadka ay la yimaadeen sidii dadkii ka yimi buurihii cameroon iyo nigeria dhexdeeda ahaa ee iyagu lasoo guuray dee agabkoodii oo markaa dee xooluhu wax kasoo dhintaan ama magaranaysa laakiin wax la yimi oo iyagu baadoon ahaa oo sabsaxaraanka soo maray 2,500 sanood ka hor mar labaadkiina waxaa laga yimi dadkan baantuiska ay ka yimaadeen webiga niil halka suudaan south suudaan agteeda markaana way la soo guuray katalkoodii laakiin waxay ahayn dad baadoon oo biyo raaca webiyadaasoo dhinac raacaya dabeedna halkaa alta juba yimi bay ahaayeen iyo shabeelle waxyaabahana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu odhanayaa soomaalidu waa waxa ay ka yimaadeen baa lagu odhanayaa ama waa dad isu tegay taana ma aaminsan anigu oo meelo kale ka yimi war dadkani halkan dadkii ku noolaa wixii u yimi waa la wada cadaynayaa kolley ama taariikhdu siday sheegaysa laakiin dadkii meeshan ku noolaa ee kow laga wada tegay haddaynu taa ku dhaafno waxaa imika 3,000 sanood ka hor buu ahaa ninkaa marduug la yidhahda bay kuleeyiin oo ciraaq ka yimi taasina ma aaminsanay anigu kolley oo dee marduug nin inta dhintay lasoo asay waa sheekaad dadka arkaysa inay khuraafaad nin hadduu dhintay waxbaa la geliyay dee siduu haddana ahayn dee ma garanayo kolley dadka qaar waxay aaminsan yihiin soomaalidu inay qabsato ugaarsatadaasina ahaayeen baa lagu leeyay beelaha la haybsooco kana soo jeeday ilbaxnimadii hore Mesopotamia dadka Ciraaq ka yimi ma aaminsani taana waayo dadkan la haybsoocaa Mesopotamia oo kaliya dad kama imanin meelo badan waayo waxaabay ahayn boqortooyo meesha dadka ku xukumi jirtay marka way yimaadeen taasina way igu adagtay aniga inaan qaato dadkan barbarka waxa lagu oranayaa oo ka yimi North Africa anna waxaan qabaa inay halkan ka tageen North Africa tageen taana waa la cadeynayaa marka taana ma qabo waa qaybta labaad oo lagu wadad masaaridii hore ah oo barbar ah oo ka yimi North Africa inoo yimi oo marka hadii aynu ka farcamsanahay anna waxa baan aaminsanahay wada inay dadkan barbarka ay halkan ka tageen oo xagga qabteen oo taariikhdii bay sheegaysay dadkii soo maray meesha oo taa wax evidence badan baynu haynaa oo dadkii badmareennada hay meesha marayay sheegeen in dad barbar meesha ku noolaa waynu soo soconaa marka kulli taana anigu way ugu adag tahay waayo barbarku halkan uu ka tagay xagga soo qabtay ilaa magaalooyinkeena iyo magacyadeena balbaro oo kale wixii baa kamida ilaa waxa kamida saaxil gobolka la yiraahdo oo sab saaxileenka 15 wadana saax waa taariikh fara badan oo imika aynu soo socono ayaa diidaya taana markaas oo aan arkaysa inay kala boodayaan waxa kale oo jirta dadka marka barbarka ama magarata waxa lagu leeyahay waa ku shati
markaa ma kushatig baa North Africa ka yimi halka yimaam sina kushatig noqonay way yara adagtay taasina waxay kala aaminsan ku leeyihiin Soomaalida marka joogto waa dad Carabta jasiiratul Carab ka yimi oo diin fidinayay diintu waxa ay ahayd 571 dib ayay dhalashadii Nabi Maxamed alayhi afdal salaatu wasalaam ay ahayd 531 marka dee waaba la garanayaa marka ka horbay dadkii ku noolaayeen dee meesha nimankan diinta fidinayay dee reere ka yimi way jirayaan laakiin Soomaaliya ka timi ma reere ka yimi way jirayaan dadkii Carabta ahay diinta fidinayay ha وعمان يحجاز يمكن ويجران وضد بدن كل على ماشي قبيلة وين وتاجنا يكون جران لكن يصبالو ما هكون وكليه تذكر صوماليات عرب وكما يمنين لكن صومالي عرب لدقن أو أتمي الصومالي بمركز مجرين مركز واحد مصوت وأذكتاي ويصير تاجسه waxaa kaloo jira dadku oranaya waa isku jir iska dal taasina way waa misugu bariyahan dambe oo dee taariikhaha la garanaya baa hukuniyo dheeraadkii iyo dhowrkii boqol markay taariikhda taana waa la garanaya waa iyaduna maaha mid salkeedu adag yahay marka bal aynu hadda eegno maxay adduunyadu yani ummadihii meesha marayay dadkii meesha marayay maxaa laga qoray haddaynu Soomaali nahay maxaynu ognahay intii inaynu isu geyno wax ka soo dhex saarno marka adeegto يعني taariikhaha aadka u fog ama runtii la aaminsan yahay in Soomaalidu dadka meesha deganay ay ahaayeen inaanay ahayn dad meesha yimi ahaayeen dad meesha ku abuurnaa ilaa adduunkuba halkan uu ka tegay baa la leeyahay marka in dadkii meesha ku haray iyo magaranaysaay raacraacodii iyo wixii laga qoray bal aynu eegno ama taariikhaha adduunka ay qoreen bal aynu soo dhaweyno horta inagoo dadkan originally إلهي آدمه سد النبي آدم بوك أبوري الدوم ديسا ومدة أدرك سعيد كون كنا لوحيد أنت واحد نولي واحد صوص على رب أبوري يا بدو من النبي آدم مركا waxay nu bal fariisanaynaa dadka Soomaalida ah ee maanta nool inaynu u salraacno xaguu ka yimi magaca Soomaaliga ah aynu u salraacno xageebuu ka yimi dadka Soomaalida siday isu raacayeen siday isu la socdaan bal inaynu u faarumayno mid qiyaaskooda toddoba boqol oo sanadood ka hor dhalashadii Nabi Ciise waxaa ku noolaa dhulkan ama xukumayay boqortooyo la oran jiray Demi oo boqortooyadaasoo dadka nimanka la haybsooco daamiga la yidhaahdo caasimadooda Yaha ama Yixir oo ku taalla ilaa hadda imika Eritrea iyo Maliniyada ku taalo ayay ahaan jirtay waxaynu halkaa haynaa daami iyo Yixir baynu haynaa boqortooyadaas waa boqortooyo aad u weyneed bay ahayd waxay ka soo jeeday dadkii baarbarka ahaa marka 2700 sanadood ka hor waxaynu haynaa tafiirtii ku noolay dhulkan ilaa iyo intaasay xukumaysay sabanka dushiisa ilaa iyo intaa raas xaafuun iyo raas caseer iyo intaa magaranaysaay ilaa iyo Cape Gardafuul la yidhaahdo buu dadka baarbarkii deganaa iyo intan soke inkastoo boqortooyadaas aanay soo gaari jirin halkaa haddana dad baarbaro unbaa ku noolaa wixii intaa ka hooseeyna dad azaniyan la yidhaahdo baa ku noolaa sabanka ama halka magaranaysaay ee xeebta badda cas iyo badweynta Hindiya halka ay ka kala jiibsadaan
ee aad koonfur u raacayso markaad wax yar socoto ka dambooba dadka azaniyaanka ay ku noolaaya dadkaasoo badna dad baantuya waayahay waxa aynu markaa doonayna inaynu ka caddayno dadkii meesha maray xadaaradahoodii maxay qaban jireen dadkii meesha soo maray yay xiriir la lahaan jireen dadkan meesha deganay dadkay xiriirka la lahaan jireen maxay ka qoreen maxayse yidhaahdeen way yihiin haddii kuwii meesha deganaa aanay waxba dhiganin iyagoo ama aynaan soomaali maanta taariikh u haynin magacaynu qorno oo raacno waxaa buuraha ku qoran inaan da akhriyi karaynin iyo heligraphiskaas mooyaane yacni iminka adiga arkayo iminka meel berbere u dhow ayaa la yidhahdaa 10 kun oo sanadood ka hor dad 3 mitir iyo 4 mitir baa ku noolaa yacni dee intaa yara raacraaca mooyaane ma hayno waxyaabaha yare laakiin haddii dhulkeena la gelin helayo macnina milyaan aada u fara badan dee oo taariikha laakiin aynaan garanaynin maxaynu dee taariikh soomaaliyeed baa naba iminkaaynu isku haynaaba jilibadii raashan ay dhashay baynu isu haynaaba moogtay laakiin maxaynu dee in ka badan oo kale maba raaci karaynaba markaad eegto xadaaradaa waxaa kasii horeysay xitsabshuut markii ay imanaysay oo ay imanaysay dad markaasi dee dadkii meesha ku noolaa oo ah dadkii aan ka tegay bay tiri ama dhulkii awooyaashay iyadoo soddon dooyadoodata markii ay timi meel berbere dhinaceeda ah ayay ciidan bay kaxaysanaysay doonaysay inay markaa meesha ku qabsato oo adigu markaa dadkaasi bugaagtaasi ay qorayaan maxaad naga soo doontay ay leeyihiin soo awooyaashaa kuwiina nacay maaha waa iyada awooyaasheed meeshaasoo markaa ahayd iminka markaynu eegno taariikh dhul dadkeena boqorka iyo dhaclaha haddaynu eegno ninka fircoon ama faraaciinta dee ninkii qabsaday ee markaa isagu boqor u noqdaa wuxuu iman jiray dhulkaasi oo lagu cimaamadin jiray waxaa la yidhi yani boqorku waa marka la boqorayaaba oo maro dhexda lagu xidho imankay dumarkeena ku xidhaan maogta ilaa imika waynu dee haynaa boqorkii dadkii meeshaa deganaan jiray ay saa isticmaali jireen waxaa kaloo jirtaa marka la sheegayo aynu xilligaa ka bilowno dad soomaali la yidhahda de kumay nooleen dadkaa baarbarka ah baa ku noolaa dadkaa baarbarka ah laynama odhan waa qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel waa baarbar baa layleeyihi mee deegaan welibana gaarkiisii isu maamuli jiray oo u lahaa dee uu lahaa suldaankooda yani liidarkooda uu lahaa hogaamiyahooda waxaa markaasi jiray haddana in dadkaa markaa halkaa ku noolaa haddaba ee baarbarka ahay ay xidhiir baayac mushtari la lahaayeen boqortooyo fara badan ka hor dhalashadii nebi ciise waa 2014 sanadood ka hor dadkaa baarbarka ah ee meesha ku noolaa inay la lahaayeen xidhiir baayac mushtari dad fara badan oo magaalooyinkan yaryar ee imika la arkaya xeebaha ku yaala ay ahaayeen asian ports ama ay ahayn dekado qadiimiya dekado aada u waaweyn iyadoo markaasi aada loogu xuso baayac mushtarkii ugu weynaa ama baayac mushtarkii ugu horeeya da adduunyadaba ka bilaabo ee ahaa baayac mushtarkii xawaashka ama spice tradekii baayac mushtarkii xawaashiyada iyadoo ay ku lamaanaayeen fool maroodiga xabagta iyo exotic animalka waxaan la yidhahdaa ama cats familyga la yidhahdo wax libaaxa harimacadka shabeelka waxyaabaha cat family la iyo sida laakiin geriga oo kale iyo ugaadha yaryar oo kale adigu garanaysaay dee abuurta ilaahay ka mid a marka waxaa soo dhami waxa wada ahaayeenun wixii baayac mushtarka marka waxaad ogaataa dee xawaashaduna dhulkay ka bixi jireen indiya way ka bixi jireen xitaa waa la keeni jiray halkan waa laga qaadi jiray waxaa kale oo markaa isna baayac mushtarka ugu fara badnaa waa dharka dadkan markan haddaba iyagu baayac mushtarkan adduunkaba qabsaday ama xeebaheenani ahaa ama meelaha laga kaandaroono ee la isku laayo ayaa waxaa haddana lagu sheegayaa in ay bilaabi jireen inay lahaan jireen doonyo ay samaystaan iyagu isla markaana lagu ammaanayo
waana disiin doonaa reference meelaha ka heli doonta oo lagu amaanay inay ahaayeen badmareenada adduunka uga cajaa'ibsan ama yaqaana sida badda loo maro oo ruudadka ay ka wareegayaan maadaama ay tahay ruudkii ugu horreeyay ama dariiqii ugu horreeyay dariiqa mansuun magaranaysa dabaylaha mansuunka la soo raacayo badda casida u soo galayo maadaama iyaguna badda casida degan yihiin ayaa waxay la falgaleen inay bartaan barashada dabaylaha xilliga iyo halka laga wareegayo oo dabeedna ay ahaayeen niman aad u yaqaano dooyo markaa loo dhisaangareeyay dabaylaha iyo waxaasay samayn jireen fuqan hore dooyaha waxyaabaha la saaro beerinka la yidhaahdo ayay samayn jireen marka ayna ahaayeen badmareenadii markaasi ka tilmaanaa kownkan aynu ku noolahay dadkaa meeshaa deganaa may ahayn dad la yidhahdo Soomaali laakiin waxay ahayd dadkii baarbarka ahaa iyo dadkii azaaniyaanka in yaroo azaaniyan halkan dambe markaa deganayd okay البحنمية أدون كوي من جريجا وابوجاس ولا نسين ده يسجل ريفرنس كيسة أيا ويصور ده على ريفرنس كمر بينو دي بينا أيا سنو حشري جينا فرتي البحنمية أدون كوي هنا أيا هاي أنتي جريجا إن كستور لقونية تديمتك تكين جويها يا منطقة سنو يعني تذكر باربرك عمرك حالك كل ولا أيا نمبر 1 هاي تسوق كل لكن باربرك البحنمية دي باربرك ما ديمت ما هين سوري تذكر ديمت كلا يسمى هين البحنمية دي باربرك مركا قبيل بقرطوية ده باربرك أيا نمبر 2 يا بكلية يوم البحنمة مسوبوتاميا هي تي كلا كجرتي إلى ماشي العربتها صدق هذا البحنمة أقوينا تي جريجا تي جريجا تي باربركا تي مسوبوتاميا هي تي مساعدة أفرتها البحنمة دون كمركاسي وكل نبرتوجا باربر هلا لكن سيد القرية أهل البحنمة باربركو أما حد عارض باربركو اللي كهو رئيسي جريجا حتى كده عصرية سنيد بقى marka khadad kale ma jirin adduunka diyaarada ma jirin baabuurna ma jirin doonyaha sayxayn iyo doonyihiina ma adiga arkay inay caalamka marka iyagu ku hogaaminayeen xagga loo wareegayo way boqortooyinka markaa jiray haddii aynu eegno taamusul bataamiya marka laga yimaado tii faraacinta marka laga yimaado waxa jirtay boqortooyo Lubnaan reer Lubnaan ahayd iyaduna marka xagga Lubnaan ka dhignayd oo la yiraahdo Phoenicians ayaan u maleynayaa kolleeg spellingku waa PHOENICIANS boqortooyadaas oo Lubnaan deganayd oo markaa Tigriga oo ah markaa 1600 oo sanadood ka hor dhalashadii Nabi Ciise iyo Babiloonkii waa xaggii Mesopotamia oo iyaduna xilligaa ka sii horeysay xeebahaas ay leedahay markaa magaalooyinka runtii ay isticmaali jireen ama xiriirka baycmushiro leedahay ee buwaabtu ay qoreen waxaa ka mid ah Evelet Malaya iyo Mindu iyo Mausoleum inka Evelet waa Saylac Malaya waa Berbera Maydo Minduya iyo Lasqore ama Boosaaso oo Mausoleum ay la lahaayeen xidhiidh وصدحنا دكتور بها الدكتيه وفرها بالله يا مركزي أي كتجي ترين أنت على هي عنكم واحد كلا يحدد الله هاين وما يكون ترتمي ترين حق بيع مشترك مركي دنبي حل جاس يقول مركا ترتمي ما ترين ده يجا أبو بدنا وسمين ترى أيام مركي دنبي واحد ترتم ونحيمي oo deeli way taariikh oranayna sanadkii ka dambeeyay wax weeyaan gaab in boodina moogtay waxa kale ilbaxnimooyinka ka mid ah ay dadka markii kuwa ka dambeeyay ayaguna ilbaxnimada ku tirtami jireen xagga bay'ad mushtarka oo runtii ay kaga caddaayeen baa lagu leeyahay dadkii Saabiyanka ama Sabta ahaa eriga markaa imika inaan sab waxaanu naqaanay inuu cayno laakiin hada jeer Soomaalidu marka boqortooyo la jibiyo magacoodu baa cayda dadkan markaa Sabta ay waxa ay boqortooyin ku nool xagga Carabta وكل ولين دولكين وحكم ده بقطعي السابية كهما سبتها بيرشينكي وحاجة تونسياها إلى أكسوماسكي وحاجة نتوبيا بقطعي نتوبيا هاي دول ما كان صدق بقول صدق قرني كهر صدق بقول صنوات كهر ده الشيء اللي بعيسى ده شفتي أكسوماسكي بقطعي نتوبيا كنت كشفتي رونهاتي مركا
markaad eegto dadka kuwani ayaa waxa ay sheegayaan in dadkan markaasi ilbaxnimo waxa weeyaan waxa qoray waa Axumaskii Bershiinkii kitaabadoodii baa waxa ku qoran in dadkan baarbarkii ay sida ahaayeen marka waxaynu ogaanaa horta halkan in dad baarbari ku noolaa xilliga waxaynu u soo faarumaynaynaa ama soo qiyaastayna bal magacan Soomaalida iyo sidii baarbarkan u fasaxmay inta markaynu ka nimaadno waxa aad inta aan soo sheegay reference ka helaysaa Wilmington buugga la yidhaahdo South Asian Book oo soo baxay 1995 page-kiisa 54 186 iyo 229 oo ninka waa ka helaysaa waxaan soo sheegnay Archie Bennett oo isagana waxaad ka helaysaa The Arabian Seas, the Indian Ocean Wall of the 70th century. waxaa kaloo ka helaysaan East African and its Invader page 45 saddexda reference buu ka soo helaysaan inta aynu ka soo sheegnay waxaa jirtay markaa boqortooyada haddaba Lubnaan ku taala taariikhdeedu waxay ahayd 1550 sanadood ka hor ilaa 300 sanadood ka hor dhalashadii Nabi Ciise hadii jeer taariikhda wax loo xisaabiyaa markay wal tahay halkan waa qarnigii koowaad qarnigii labaad kii saddexaad kii afraad kii shanaad kii lixaad kii toddobaad ilaa imika aynu joogno qarnigii 2000 iyo 2014 aynu joogno sidan marka loo xisaabaynayo marka lagu leeyahay qarniga yani 1500 sanadood ka hor marka lagu leeyahay waa 1500 sanadood ka hor ayay xaggaas laga soo tiri marka 1500 sanadood ka hor baa la tagayaa deedna ilaa 300 sanadood ka hor dhalashadii Nabi Ciise hadda 300 sanadood ka hor bay jirtay waxay ku soo dhawaanaysaa halka sida loo xisaabin maayo waa 300 sanadood ka hor ilaa 1500 sanadood ka hor saas loo wadayaa iyada tan saas loo wadayaa marka lagu leeyahay 1500 sanadood ka hor dhalashadii Nabi Ciise ayaa la istaagay ilaa 300 sanadood ka hor baa lagu oranayaa marka taasay ahayd boqortooyada Lubnaan tan kale ee iyadu Hellenistic Kingdom ama magarasa Ptolemaic something like that BTOLEMIAC وسلقدوا لها مصر waxay ahayd in adigu dhimashadii ka dambe Alexander Great ninkii loo jiro 323 sanadood ilaa 30 sanadood dhalashadii Nabi Ciise ka hor ay iyaguna dibaac mushtar lahaayeen waxa kaloo tii Greek oo iyaduna inta ahayd waxa kamid ahayd Persiankii oo Arsatic dynasty oo isaguna ahaa qarnigii koowaad ilaa kii saddexaad dhalashadii Nabi Ciise ka hor iyo ka dambe iyaduna after the death AD waxa kamid ah Sabiyankii oo iyaguna markaa Yemen deganaa waxa kamid ahaa xadaaradii 1200 sanadood ilaa 257 sanadood ka hor oo adigu Sabiyanka magaalada capitalkeeda ama caasimadeeduna ahayd Marib waxa kamid ahaa Nabataniaski oo qoyiga carabta ahaa oo iyaguna ahaa 33 sano ilaa 100 sanadood ka hor ka dambe dhalashadii Nabi Ciise oo iyaguna Syria reference noocaas iyo boqortooyinka noocaas baa ka soo helaysan taariikhdaas in marka dadka meesha ku nool ay ka baaxmuusin jiray magaca adduunka ku lahayn baarbarahay horta inta ay inoo dhiga inta markaynu ka nimaadno taariikhdu markay ka ahayd ilaa adigu 60 intaas lagu leeyahay waa qarnigii koowaad baa waxa maray in la yiraahdo Publius oo Egyptian Greek marka ninka sheegay magacyada magaalooyinkeena isaguna dhigaya oo buugga ay ku taalo Eritrean Sea Publius Eritrean Sea baad ka soo helaysan reference kala baan isagu horena waynu sheegnay taa ayaa waxa uu sheegaya Filatin Israel ahayd malaayo marka ay waxyaabihii laga baayac mushtariinay muhiimadeenu waxa ahayd marka hadii isla soo garanay in ummadaas ahayn ummad adduunka baayac mushtarka number 1 ka ay ahaayeen xilliga ahaayna afartii baxnimo adduunka ugu sareysay tii ugu horeysay Greek waxa kuba murmay laakiin leeyahay qursi ilbaxnimo adduunka kamid ilbaxnimooyinkeeda aynu nahay ayaa waxa jiray inay dadkaas u ahaayeen horta dad baarbara inay ahaayeen ninka hadaba la yiraahdo Claudius Publius ay wama garan laakiin waa garan kartaan waa Publius Eritrean Sea baa la yiraahdaa marka Claudius baa loo jiray ninka magaciisa Egyptian Greek waxa ayaa markaa waxa uu maray
malaayo iyo dee wuxuu maray saylaco eveleta ilaa adigu wuxuu kasoo bilaabay masar ilaa iyo uu maray halkan oo rabta oo ah markaa dee tanzania mise mozambique mise kenya adigu la garan maayo rabta halkay ku beegnayd rabta laakiin wuxuu bahayd un adigu kenya marka la dhaafo intaas sidaa marka uu maray ayuu haddana dhinacan kalena wuu maray xagga coastka carabtana wuu maray maogtay oo halka carabta uu ka galo halka hindiya ka galay markaa nin wuxuu ahaa un adigu baayac mushtarka meesha iyo khadadka raadinayay buu ahaa nin scott la yidhaahdo ayaa isagu dee jaamacaddan jaamacad ku taalla waynu soo sheegnay taasoo ku tala jerman ayuu dhigay iminkana adu 1500 waxaa la dhigay haddana scriptkiisii waxaa la dhigay london museum taabel holandeediisi reer faransiiskeeda waana soo heli karaysaan ninka Priplus ama direct haddaad ku dhufatay iminka google-ka Priplus Eritrean Sea wuu ku soo baxayaa marka uma baahna waxaad ka helaysaa encyclopedia Wikipedia meel walba uu yaala buugaas waa caadi iyo magacyadii magaalooyinka haddaad malaayo ku dhufato waad soo helaysaa haddaad ku dhufato evelet waad soo helaysaa magacyada magaalooyinka magacyadooda markaad google-ka ku dhuftay oo ku siiyo waad raacaysaa easily halka ugu fudud xitaad kala soo helaysaa waa Wikipedia-da ama encyclopedia-da ninkaasina wuxuu sheegay ama buugiisa markaad egto chapterka 7 wuxuu ku sheegay chapter waa paragraph yani oo kale waa chapter yar baynu qaadayna ama paragraph 7 ama chapter 7 ama paragraph 7 markaad buugaad google gareysay ku dhufato wuxuu sheegayaa markuu soo wada intii hore soo socday inuu soo gelayo gacanka la yiraahdo evelet ama gacankii saylac waxaan gacanka carabta waxa la gacankii saylac baa loo jeedaa gacankii evelet chapter 7 ayuu ku sheegayaa magaaladaas markaa waxa weeyaan evelet baa la oran jiray baayac mushtar baa ka jiray caynkaas ka jiray caynka laakiin dadka degan inay barbar ahaayeen buu sheegay inaga waxa weeyaan baayac mushtarka iyo xiriirkooda iyo marar kale inuu ka u geli doonaa ganacsiga hore Soomaalida waxaynu qalmo masaaridii hore laakiin Soomaalidii hore ama barbarkii dee kulli imika Soomaali weyn magacaas uma la hirgelinayaa Soomaalidii hore ka xadaarad badnay iyaga haddana adduunku ma sheegay adiguna dee waxa kuma dhigin meesha wadiga maanta isoo haystar reer hebel 6 sanadood ka hor halkii la joogay maanta dib ugu noqotaa joogta dadkani dawa kaasi soconayaan ku sugi maayaan taariikhda iyo wax walba way qaadanayaan marka adiga idee ku jirta taa gali mayna iyadoo nasiib darada in haysatay way Allah soo hadiyo Soomaaliya in dadka wuxuu ninkaasi sheegay in dad barbare ay ku noolaayeen qaabka ay bacay mashtaraysan jireen iyo quruxdoodii xaragadoodii iyo adduunkii iyo wixii waynu ka tageynaa moogta gali mayna inaga muhiimadeena waxa weeyaan dadka meeshan deganaa inay barbar ahaayeen horta chapterka marka 13 wuxuu sheegayaa xeebtu markay leexato ay ka leexato gacanka evelet ay ka leexato Cape of Gardafu in loo galayo dad Azaniyan oo ay noqonayso the end of the Barberland buu ku leeyahay dhulkii barbarka ahaa halkaas oo ku dhamaaday markaad xeebta eegto waa inta aan marka magarasay dad Soomaaliyeed iyo Puntland weeyaan inta Puntland waliba qaybteeda dambe oo dhan waa Azaniyan baa lagu oranayaa markaa dee Boono iyo xaafun iyo ras xaafun iyo malaad xaggaas hobyo iyo dhulkaas iyagu wax weyn dadku ku noolaa Azaniyan ku oranaya isagu ninkani wuu maray bad meesha uu qorayay markuu scriptkiisi waxaynu galaynaa bal haddana ilaa goorta dadka barbarka lagu yiraahdaa markay istaagaan ee Soomaalidu soo baxday bal barbar iyo Soomaali maxaa u dhaxeeya bal magaca Soomaalidu goormo bilaab waxaynu haynaa markaa oo kale nin la yiraahdo Yaquutal Hamawi oo soo Arab ha waxa qoray ayaa wuxuu sheegay Muqdisho in loo jeedo bilaadul barbar 1779 1229 after the Christ ayuu sheegay isna marka waxaad ogaataa bal horta kow taariikhdu marka ahayd ilaa 1200 marka ahayd inta dadkii barbarka ay meesha ku noolaayeen Yaquutal Hamawi baa la yiraahdaa ninka magaciisa wato yacdaad ku Google garayso waad soo helaysaa dabeedna 1279 ilaa 1229 ninkaasi dee noolaa dhowr konton sanadood ayuu ku dhintay mala ninkaasa waxa uu sheegay in bilaadul barbar la oran jiray magaalada Banaadir la yiraahdo ama Muqdisho ama Xamarka u taqaano halka maxaa ka cadaba maadaama uu Claudius Perpius qarnigii koowaad ee sanadka uu yiri 1179 adigu ilaa 1200 sanadood kadib barbar degan buu yiri markaa Muqdisho marka waxaad ogaataa in laga riixay dadkii Azaniyanka oo barbarkii ku fiday ilaa ay Muqdisho horta aqalgeenu taas uu ina siinaya waayo Claudius markuu meesha maray Azaniya la oran jiray dadkii meesha deganaa waxay u badnaayeen dad Azaniyana bilaadul barbarna waa skinny dark
kuwana waxay ahayn bantus marka waxaad ogaataa inaga markaad eegta imika waa imisa kun iyo markaad ka jarto 2,000 markaad 1,100 ka jarto waa 900 sanadood ka hor in dad barbari ay ku noolaayeen oo laga riixay kumanaan sano 1,000 iyo dheeraad sanadood ka hor dagaaladii ka dhacay ee markaa bantuga iyo barbarku ay isku qaadeen in dadkii barbarka ay qabsadeen meesha markaa xamar badda ay ahayd bilaadul barbar sida yaquut al-hamawi uu sheegay markaa weli ma hayno magaca Soomaaliyeed barbar iyo asaaniyaan u bayno hayna barbar iyo asaaniyaan ilaa imika ma hayno magaca Soomaaliyeed way 1460 ayaa waxa ima ambassador ka socda boqortooyadii dhistay the Great Wall of China Ming loo oran jiray ambassador ka socda magaalada inuu yimi markaa banaadir iyo wuxuu tagay Malaya iyo Everett berbera iyo saylac iyo buu tagay iyo muqdisho 1430 kiilo wuxuu ku soo noqday Barawe markaa barbar ma degena barbar la sheegi maayo laakiin waxa la sheegayaa in la oran jiray magaalada banaadir laakiin Ajuuraan Sultanate ama boqortooyadii Ajuuraan ka markaa ka jirtay halka markaan istaagno ayaad waxaanu helaynaa bal hadda wax yar oo isku soo dhow oo ah waayahay boqortooyada Ajuuraanku goorma ahayd haddaba halka intaynaan gelin baa waxaanu doonaynaa nin la yiraahdo Duarte Barbosa oo isaguna ahaa Portuguese oo socdaalkiisa intuu Lisbon ka yimid markaas soo maray xeebahan ayuu soo maray Everett iyo wuxuu soo maray saylac iyo berbera iyo soo maray dabeedna wuxuu yimid xamar ayaa oo markaa xawaashidii waxaasay doonayeen iyaguna waa markii imaalaantu ay qaadeen Portugiisku badaha iyo xeebaha markaa ay doonayeen inay kharibaan magaaladan Tubo banaadir baa loo oran jiray weli waxa uu tagay magaalada Hindiya markuu halkan dhaafay ku taala gobolka Gujarat oo la yiraahdo Kambaya oo ku arkay isaguna markaa dooniyooyin aad u fara badan oo u raran ama u shixman banaadir 1330 waxa soo maray Ibn Battuta markaa Suldaan baa haysan jiray la yiraahdo Abu Bakr ibn Sayyah Umar 1330 banaadir baa ina loo oran jiray magaalada marka aynu marayno Ibn Battuta mu oranin Soomaaliya waynu soo dhawaanaynaa 1330 markaynu ka tagno 1200 ilaa qarnigii 12 ilaa qarnigii 17 waxa jirtay boqortooyada Ajuuraanka loo jeedo boqortooyada Ajuuraanki markaa waxay ka soo dhantay markii hore meeshu saldanate bay ahayd suldaanaha xukumay markii dambe ay boqortooyada Ajuuraanka ahayd ilaa hadda lama odhayo boqortooyo Soomaaliyeed Ajuuraanku waxay ka soo bilaabeen dhulkan imika la yiraahdo xaggan kilka Soomaaliya kilka Soomaalida kilka shanaad dabeedna waa ku ilaa xagga ay koonfurta iyo alta Juba iyo waxa weeyaan baad la isku leeyahay adduunkan imika nuclearkeeda la raadinayo batroolkii wax daaq xoolaad iyo beeraley u baahan mustaqbalka halkaas la iska raadinayo xagaas ku sooftay deewaantii markii dambe boqortooyada Ajuuraanka wada ka soo sheekeynay Portugiiska ba ka rartay badweynta Hindiya iyo aagaaba iyo yaani markan ka horeysay marka dadka dadka barbarka iyaguna baac mushtarkoodu may u iman jirin Portugiis yaani waxa bay ahaayeen dadkan iyagu xeebta mariya oo burcadbadeeda Portugiiska ka eriyata piracy bay wada ahaayeen moogtay Portugiisku bariga oo maraakiibta iyo waxaan doonayay inay ka qaadaan Gibir marka boqortooyada Ajuuraanku lama odhanayo boqortooyo Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa Ajuuraan Sultanate halkana waxa ka jirtay marka waxa la yiraahdaa Adal Sultanate halka markaynu ka tagno haddaba markaynu ogolno boqortooyada Ajuuraanku oo ahayd qarnigii 12aad bilowgeedii marka runtii boqortooyada Ajuuraanku qarniga 12aad Ajuuraan Sultanate may bilaabman saldalada ahaayeen dadka Ajuuraanka ah waynu haynaa qabiil kamid ah qabiiladii Soomaalida imika nool inuu xilliga jiray
maxaa haddaba markaa iyana meesha ku jira oo imanaya waxaa imanayaa boqortooyadii adal iyana oo ahayd 1577 oo ah 1415 ilaa 1577 boqortooyada lafteedu markan may bilaaban adal waxaa kasii horeysay ifaad waxaa kasii horeysay boqortooyo yaroo kale boqortooyo ma ahayn markaa saldarada yaryar oo markay soo socotay baa isku duubni markii dambe ay adal timi ama cadal whatever okay may ahayn dad Soomaaliyeed markaa iyaguna kahor laakiin saldaradahani way ahaayeen qabiilo imika Soomaaliya marka Soomaali lama oranayn dadkii Soomaalida ahaa lama oranayn laakiin waxay sheegeen adal waa qabiiladan imika ku nool dhulka ayaa adal iyo ifaadba iyo ajuuraanba ay ahaayeen laakiin Soomaali may ahayn magacan Soomaali ma jirin markan dambe ee adal dabayaaqadeeda iyo ajuuraanka dabayaaqadiisa ayaa magaca Soomaaliga imanaya waxaynu haynaa 1414 ilaa hadda wax meel ku qoran Soomaali sheegaya dadka badankiisuna ay hayaan rag badan oo taariikhiyahan ay hayaan boqor la oran jiray Isxaaq Nagaashi gabay lagu amaanayay inuu jabiyay ciidan Soomaaliyeed 1414 1414 waa dee abridhoyd qabiiladan imika noolida way noolaayeen waana hortoodna way noolaayeen 1400 oo ajuuraan state ajuuraan sultanate ayada Soomaali qabiiladeedu noolaayeen iyo kuwii kasii horeeyay boqoraan sano ka horeeyay laakiin Soomaali ma jirin laakiin ma qalayno maqalo 1414 baa ugu horeeyay Soomaali waa 600 sanadood ka hor maanta 600 sanadood ka hor ayaa ugu horeysay magac meel ku qoran oo Soomaali halka markanu marayno magacan Soomaaliga ah muddada in yar ka hor buu yimi 700 sanadood ka hor ayuu magaca Soomaaliga ah yimi miya waayo waxa jirtay qarnigii afraad islaamka dabadii ayaa waxa bilaabmay inkastoo ay jireen oo islaamku uu soo gaaray bade hijriyadii ay yimaadeen bade Abasiin iyo halka Saylac ay ka soo degeen baa la yiraahdaa de ay waxa jiray masaajid qibilateynka Saylac ku yaala marka wada arkaysa in saddex qarnigii yani sanadkii saddexaad ama labaadba uu yimid islaamku yani diinta islaamku ay timi geeska Afrika ama dhulka aan ku noolahay وده مساجد قبيلتين أبى سيل عكوية لك هصاب ده تاريخ كوفلان قبيلتين مساجد كان لبده قبيلة إن مركي هالك لو تكون شرينا حاجة قدس لو تكون شري ينام كبعد لو تكون لبده من إسلامك وده الدين تإسلامك هيستا أي دين جناين تعصابك كوفلان أو يدو ده ومخاتم الدون يعني لا اسمه مساجد ده يلا وعي إن إسلام كبر سوى قاعد ده إيرلي مركب بالله ما يبغى مدة إسلام كمركو سوق عليه ده لحبة غلبة شنب قولي ده لحدي ويمي بدي مقالات أمريكا سنة كشنب قولي ليرات كي بتاريخ دينا ويمي وحسوب بدنا عيب رج يجو دين تفديه أو عربة كهرنا واحد إيمان عيه تاريخها هوري إيشين تايمز كانوا واحد إيمان عيه إما كمركي الدجالة دي أمام مجالس عيه ده بعريه بعناية كده عيب بيرشي يو إن إيمانيين ضد يقولوا بيرشيانة أما عربة وإلا سوريا لبنانية كإيمانية أي إيمانيين دول كينن وإيسة الجروبين وإلا ما أنت فيرتو ده إنه شهية بيراتي
wuxuun bay ahaayeen dadkaa meesha ku nool ee dadkii baarbarka ahay la yimaadeen la nool dadkan baarbarka ahay soomaalidan maanta wada nool badankeedu waxay ahayd qabiiladii baarbarka ahayd ee meesha deganeed maxaa kale ku jira boqortooyada daamid oo ah 700 sanood ka hor dhalay sidii nabi ciise 2700 sanood ka hor inaynu hayna iyagana dadkii maanta aynu hayb socno qaar kamid ay yihiin waxa kaloo yeena jirtaa saabiyankii oo dadku iyaguna markii ay soo qaxeen markii ay yimaadeen dhulkeena dabeedna ay dadkii meesha degan ay boqortooyada daamidka ay caawimo ka doonteen saabiyankii yimaadeen hub iyo keeneen teknolojiyada iyo magaranays ay adigu treenino waayo boqortooyada daamid waxay ahayd boqortooyada taqaana birta isla marhaantana samayso oo markaa hubkii lagu dagaalamay markaas oo afaas iyo dictator iyo waran iyo xisaabaadkaas ayay haysteen oo yaqaaneen macallinta kale dadka yaqaan markaa boqortooyo weyn bay ahayd oo iyadu kala daaray ilaa dunyada ku fiday واي سابين كي بايمي مانين كي بايمي سابين كي بأصول نقضي إلا أنت قبيلة دي مركا أما إنه نحن الصب هذا لهنا أما إنه نحن مجرسة مانين لهنا أما إنه نحن دامي إنه نحن وضد كان ما أنت مركا إمك كل نورك الصومالي ده يدك إيمان هاي يدك ماشي كل نورا إخوة waxaa jirtay imika dad la yiraahdo agaw oo isku jiray agaw erayga la yiraahdo waa walaal boqortooyo ama magarasa aad u deesal daradiro agaw la oran jiray oo iyana halkay kilka shanaad imika ka dhigan oo agaw waa walaal iswalaalsaday isbahaystay marba waxba la isku raacay mar reer baa la isku raacay mar walaaltina baa la isku raacay markii dambe Soomaalnimo la isku raacay way markaad inta soo dhan eegto waxaa jiray dad imanayay 1700 dadka nimanka qaalu qabiilkan ugu lahdo oo kala Richard Burton uu yiri dhowr qarni ka hor bay yimaadeen oo sheekhaas dagalay imika markii hore waxa jirtay dadkani waxay ahaayeen dad cawaana sanamo badan baa lagu caabudi jiray oo Soomaali maanta imika dhulkan Puntland iyo inta ma aragtay dadka lulkii loo jiray Puntland ma hatan imika waqti Puntland kan imika ma dadkii Puntland ma loo jiray Bantiska loo jiray waxay aabudi jireen sanamo aad u fara badan dadkani waxa iska dad cawaana oo aan diin lahayn bariga oo dhowr sanood ka waxa la aabudi jiray waaq oo barikii ugu dambeeyay waxa la aabudi jiray tincaar waxa la aabudi jiray tinniix waxa la aabudi jiray وصنم وحال عبد جري تنيح وحال عبد جري وقر وحال عبد جري هبل وحال عبد جري هوبل وحال عبد جري ويفر بضاي بيفر بضاي أسلامت مش اللي هو عبد جري dadkaas marka waxay markii dambe diimahan kala dambeeyay way soo gaareen oo diintii Tawraad Furqaan iyo Injiil intuba dadka way soo kala gaareen waxyaabaha ugu badan ee la isku haybsoo ayo waxa kamid ah boqortooyo diinta haysatay ama magaraysa khuraafaadka haysatay oo la jabinayo kuwa hore haysatay jabiyana markii dambe ee islaamka uu ku soo fiday ayaa waxa la wada dagaalamay dhamaan wixii waxa caabudayay oo dhan dabadna dadkii baa la gumeeyay boqortooyo ayay garaacaysay boqortooyo kale garaacaysay oo la iska bahaysanay markii dambe ayaa waxa yimi ee nuurkii islaamku uu dhulku yimi ee uu ku fiday ee shuyuukhdii meesha timi ay dhaleen qabiilo markaa tarmeen dhowr boqol sanadood markay deganaayeen iyaga dhinteen ubadkoodii waxa la gaaray in go'aan la gaaro bal la isku badbaadiyo lagu wada noolaado dadkii meesha indeganiba ama markaa ha noqdaan dad aan isku ahayn isku jinsiyada laakiin isir ahayn ama qaar iyagu aab wada dhalay oo meesha degan ha noqotee waxa la damcay in nidaam la isugu yimaado maadaama nidaamadii hore shaqayn waayeen ee magaranaysaa ay shariiga ah maadaama ay islaamkii iyo nuurkii iyo magaranaysaa ay
قرشدي إلهي سبحانه وتعالى يدينتي سي مقرأ سعيد دينتي ورسولك يروح عليه الصلاة والسلام بحمرك أي ماشي سوق عليه ما شاء الله النور كي بيبقى محرد معي إن بدل له شيء لأن ذلك السماء الله يدون تي السماء الله وحلا هذا إن له شيء أنا قلنا according to my عبد God سمالة أيوم مجا عن سومالي كيمي سمالة نوا سماء له شيء إما هارت النور وحده soomaalida intaa eeg magaca Soomaaliya 600 sanadood ka hor la maqlay day kama farcamin ram waq buu ka yimi iyo sanje gilalu ka yimi iyo walaaba oroma sanje gilale hunje buu ka yimi iyo waxaasi socon maayaan waa magacyo ayna shaqo ku lahayn oo la iska abuurayo oo halkaas uu ka yimaadeen ma jirto sagaalka Soomaali hadaad maqasho oromaduba Soomaali waa leedahay dadkan oromada abadankood intii islaamtii mooyaan waxa lagu riixay diin bay ahayd baantuuga waxa lagu riixay diin bay ahayd dadkan isma allay ku heshiiyeen dabadna Soomaali sidaas ay ku noqdeen isla dadkan nool baa marka horena kala ahaa reeraha ay la dagaalamayeen oo taariikhan ay noo sheegayaan 1400 markay boqortooyada Ajuuraanku bartay iyadoo boqortooyada Ajuuraanku jirto waxa ay boqortooyinkii sama allaha ka taliyay هذا الاستيد وحيهم كذب ودجال أحمد قولي مركو وشبي واتي أرمدي ينفيش كسوق عطي حتى ولا عابيو ولا ريحة ريحة هي ريحة الدركة هاي مركا إرسمالك هو ضنورا هي بدن كود ريحة وحالك كاقعد سماء الله وحلا كان حيرة تذكي ماشي دقنا أي قوة النقمان ولا قصد بقية دينتي إسلام وحيمي oo xirtii marka ama nimankii diinta islaamka de keenay in ay xir fiqi hebel in dadkii xirta ahaa ay markaa noqdaan dad walaalaha oo qabiilka sheegtaan oo maanta qabiila oo laga sii farcamay marka aad u fiirsato reerka dir la yiraahdo waa dir irir yahwiye irir waa irir Soomaali reerka dir la yiraahdo ba inta aan anigu taariikhda ay xeeran iyo shuruuc leh وأنا غيركي كان أي مركز نجوه رئيسها أنا قلت سيدا عنقبة عبد الجود هنا according to my knowledge عنقبة إني هين غيركي كان أي حير كان سمع الله عم الصومالي ده يكون هشين يسوي تبي نجو يعني وإحنا سمع الله يهاين وإحنا وحي هاين وإحنا وحي هاين سمع الله لويه شيء لكن جروب اللي بقى إنه السمالي أو ده سمالي حنفترة سمالي حمرة سمالي دي قبيلة ده وين كسر شكل سيال كاس سمالي إنجو يعني إن ولا يشد دجاج ودو بقى أما إسكو جروب بقى أما مجرى ساي إسكو دم وداعي بقى أما إسكو بحي بقى إن يلبحان عارفين كذا غير حوالله يقول هذا ما يلا سمالي قال شعل أي وده دقيه هو كرنيرة سمالي وصل صور كرنيرة سمالي هوية وإير سمالي وهوية إير دبور سمالي كذا عورة ماله يقولوا مقهر سمالي أو كسمة يدقة مركا واحد أركيس dadkii waxa loo soconay waa xagga daaqa loo soconay dhulka wabiyada alta jubaya shabeelle waxa halka geeyo oo kale dadka imika marka eegto dirku u badan yahay halka waxa geeyo waa riixitaanka ay dir iyo irir Soomaali waxa ay riixayeen oo dadka ugu badan ay wax riixay wad bal u fiirsa imika marka laga soo bilaabo Djibouti dusheeda Eritrea ay wadaagno ilaa ay xeebta marka socoto oo Kenya dusheeda waxa degan waa qabiilka dir lagu yiraahdo حد كأنتين أورمو يلا لأن هاي مصايدة أنت ريرها أم عن فرط الله لأن إثيوبيا كنا ندير بعدين وحضرتك يصدق كمية الريحة إن هاي ندير أو بدنا يندر كي يقولوا كان حريستي الريحة وهي ما كانت قبيلة يجون بهالكاتكين halka ugu badan waa inta de shawo area iyo baali iyo magarasa inta magarasa dawro waxyaabihii la oran jiray iyo inta soo dhan waxa weeyay ilaa alta juba marka reerka garaha lagu yiraahdo kale isaguna garra sanaso garneera Soomaaliya iyo de garra waxa weeyay waxa weeyaan gabjata Soomaaliya garneera Soomaaliya oo iyaguna halkaaba degan oo raxan weynta hadda maqasho waa riixii dirka hay'is bahaystay iyaguna wax riixay ama baantuuga riixay halka tagay mid kalka ka tagay oo ka cadhooday oo halka tagay war dagaalka waa ciidankii Israaciil reeraha halka ku yaray halka degan waa reerihii unda geeshul qaydka hay halka tagay riixay marka waxa ogaataa reerahani way jireen magacan horta Soomaaliya lagu yiraahdaa inaanu 700 sanadood ba aniga tayda ka badnay
meeshii ugu horreysay ee uu ku yaala waa 1414 muddo yar ka hor xilligaas uunbaa waxa yimi waxaan la yidhahday in sama alla lagu heshiiyo markaasi aad aragto haddaba sama alla markii ay dadka ku heshiiyeen ee Soomaali quwad yeelatay oo dawladda Juuraanku islaam baa ahayd muslim baa ahayd dawladda adal muslim baa ahayd ifaat muslim baa ahayd waxa arkaysan inay markaa iska celiyeen xitaa ilaa Ethiopia iyo Oromadii markii ay sama iyo group ku heshiiyeen oo qabiilkii iyo qoloqoladii markii hore aanay waxba u tareeyeen adofis qabiilkii iyo qoloqoladii markii hore waxba uma tareeyeen halkoodii baa lagu ugaarsanay ilaa dhulkoodii baa la soo qaaday laakiin markii sama alla yimi ay Soomaali noqdeen ilaa waa markii ugu horeysay markii ay israaceen waxa isku raaceen waa sama alla magaca Soomaali la yiraahdo halkaas uu ka yimi ayay waxay noqotay in ilaa Boortaqiiskii Juuraanku jabiyaan oo ilaa Boortaqiiskii Axmed Gurey jabiyo oo ilaa Aksumaaydkii oo habba qortooyadii ugu weynada Afrika ay jabiyaan oo ilaa Saabiyankii soo socotay waxa ay ku jabinayaan sama alla iyo diinta islaamka ah nuurkii islaamku markuu yimi bay halkan cabcaabiyeen oo quwadda ay yeesheen intii ku horeysay ay kala ahaayeen wala shaama iyo ay kala ahaayeen ifaat iyo adal iyo dawaro iyo waxa yar ay ahaayeen Ethiopia-ka ay xabashida ay Oromadaas u gaarsanayeen oo danuugay gamta ka saaray laakiin markan waxa weyn magacan Soomaaliya nin wax dhalay ma aha laakiin waa wax uu ka sii weyn weeyaan waa markii ay union noqdeen dadkii markaa meeshan deganaa ee markaa dadka noocaas aynu ka soo sheekeynay isu soo tagay ee carab leh timima oo ku dhaqanto oo ilaahay marka degan noqoto haday noqoto dadkii barbarka ay meesha deganaa haday noqoto milal asaaniyaankii ka haray waxaad arkaysaa in ay aha oo ilbaxnimada xadaarada noocaas lahaa in mar dambe ay kala biqbiqeen markii ay kala biqbiqeen la helay la baabiyay ka bacdina islaamkii ilaahay uga soo dhigay nuur oo islaamnimada intii qaadatay ay eriyeen intii kale ee hadaba qixi weyday ee islaamnimada qaadana markii dambe ay noqdeen imika waxa jira reer badan oo Soomaali oo aan Soomaalaha raacin markii hore reer badan ayaa jira oo aan Soomaali ahayn Soomaaliya laakiin aan Soomaali gelin waa reerihii awood lagu Soomaaliyeeyay awood waayo waynu ognahay badda reeraha Soomaaliha galay reeraha Soomaaliha galay marka sharciga nabadda xilliga aynu sheegnay kama foga marka reerihii markii ay qaxi waayeen imika Soomaali baan haybo Korea laakiin markii hore muu ahayn Soomaali awood baa Soomaaliya lagaga dhigay baahi baa Soomaaliya lagaga dhigay waayo marka hore imika markuu abtirsada Soomaaliya gali maayo Soomaaliya ma aha waa group baa lagu galayaa boqolaal kala abtirsa gaara ayuu baa hadhow Soomaaliya isugu imanaya waa nidaamkan si loo dadkan loo daba qabto iyo dhulkan oo ay magacan u sii jiro dadkani aanay kala biqbiqin la eryanaya nuurkii ilaahayna uu yimid islaamku ayay quwad yeesheen oo riixeen waxa badan in la isku riixayna waxa kamid ah diinta islaamka inay ku riixaan Oromadii wixii islaamay ba Oromada ay halka joogaan maanta ay waro waxan yaani waad arkaysaa waa dadkii Soomaaliyeed oo iyaguna qabiilada noocaas lahaa haday noqoto akishada haday noqoto jaarsada haday noqoto reeraha Oromada waa reerihii iyagu difaacay ee riixayay ee dhulka riixayay hada waxa reer deemka hawdka ilaa reserve area inta inay fdhiigan waa reerahan riixayay moogtay ee dhulka xoreysanayay magacan islaamku uu yimi marka islaamnimada la isku bahaystay lagu walaaloobay marka lagu leeyahay Soomaalidu sagaalka Soomaaliya ka timid reeraha aan Soomaali ahayn baa jiro Soomaaliya maanta reerahaasna waa reere mar dambe yimi oo dhowrka boqol sano kadib yimi iyo reere markaaba jiray laakiin ama diin ha noqoto oo cawaanimadii ha ku sii hadaan ama ha noqoto markaas qadiyad kale aan ku Soomaaloobin laakiin markan dambe ay dantu baday inay Soomaali noqdaan ama awood ha lagu farsameeyo oo lagu Soomaaliyeeyo ama dantu ha Soomaaliyeeso la Soomaaliyeeyay Soomaalidu maanta waa Soomaali ay ka timid marka wadad Soomaali magaca sharciga qaatay iyo dal la Soomaaliyeeyay weeyaan أنا مالي كلي بايونوسيس عندنا برنامج كأنه ما أنت واحد ذكيت إن أنت كذا بأيو كل الحسن